waddanka Itoobiya waxa uu ku yaala qaaradda Afrika waxa uuna ka mid yahay wadamada hoose ee ku yaala qaaradda Afrika ee aan badaha lahayn laakiin ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in Itoobiya ay sameysanayso ciidamada badda. Itoobiya waxay xuduud la leedahay Eritrea, Djibouti iyo Soomaaliya oo intooduba ah wadamo leh bado iyo dekado. laakiin isweydiinta ayaa ah maxay tahay sirta ka dambaysa in xilligan Itoobiya ay sameysato ciidamada badda Afrikaan ah oo aan bad lahayn oo ciidanka badda leh oo maraakiib dagaal leh oo maqalno noogu horeeyo Itoobiya. markaan fiirino maxaa ka dambeeyo sirta ka dambaysa maxay tahay waxa ka dambeeyo fahmayna waxaan xasuusanaa hadda markii Imaaraadka ay sameynayeen waxa la siiyay boqolkiiba saamiya laga siiyay boqolkiiba 10 ayaa waxa laga siiyay dekada Berbera. waxaad arkaysaa marka inay ku xisaabtamayaan bacdama Soomaaliya ay dhaxdooda in israbino gobollo iyo halkii ay dawladda ay mataqaan u sii qaybsameen waxay ku xisaabtamayaan in ay helaan meel ay badda lool ay ka galaan. dhinaca kale marka la eego sharciga caalamiga ah ee badaha muxuu ka qabaa in wadan aan lahayn bad iyo dekado uu sameysto ciidamada badda iyo sidoo kale wasaaradda dekadaha. runtii sida ku cad qaybta 10aad sharciga badda caalamiga ah kaas oo runtii la meel mariyay 1982 qodobo qaar ayaa ka hadlaya runtii wadan uu yeelan karaa ciidan badeed asaga oo lahayn bad balse waa in ay ahaataa ciidankaasi inuu isticmaalayo wabiyadiisa ama biyihiisa gudaha ah. haddii ay noqoto biyaha oo dibadda ah runtii ma aha mid oo keenaysa maslaxad wadamada dariska la ah wadankaasi. taas macnaheedu waxay tahay waxaa meesha ka baxaya xuquuqdii oo lahaa in uu maro biyaha badda wadanka jaarka la ah. wadanka jaarka la ah heshiis ayaa la geli kartaa inaad martid biyihiisa waxna ka soo degsatid waxna ka dhoobsatid. waa heshiis oo dawlad ka dawlad ah ama heshiis oo goboleed ah ama heshiis caalami ah sida heshiiska caalamiga ee badda uu qabo. laakiin waxay ku imaanaysaa is-afgaradkaasi inaad badeecadaada soo degsatid badeecadaada aad dhoobsatid laakiin haddii timaado ciidan oo bad ah oo military ah meeshaas waxaa ka baxaya xuquuqdii oo biyo mareenka ama transit wax loo yaqaano meesha way ka baxayaan. waxaa kaloo meesha ka baxaya wax loo yaqaan innocent passage waxaa jirta qodobo oo fasaxaya sharciga caalamiga ah in wadan hadduu uu markab iska yahay mid ganacsi biyahaaga badda wuu mari karayaa. waxaad u ogolaanaysaa sharciga ayaa u ogolaanaya inaa biyahaaga uu maro laakiin haddii markab uu yahay mid dagaal haddii uu yahay waa in uu soo weydiistaa fasax mareenka oo maraayo leh biyahaaga. Professor Xasan Mayre oo ah khabiir dhinaca badda ayaa mar kale qaba in Itoobiya ay damacsan tahay in ay goosato mustaqbalka xariiqtin kamid ah biyaha Soomaaliya ayna dekad ka samaysato iyadoo ay xilligan muuqato hamacsanaan dhinaca badda ah ee Soomaaliya. badda lool ay ka galaan xariiq ay ku yeeshaan badda isku dayaan barnaamijkan hadda inay fuliyaan maaha laakiin wax waaye 10 sano 15 sano kadib waa barnaamijka waxay danka leeyihiin inay hasaati waxyaabaha ku aadan mesela todobada sata Soomaaliya waa todobo sata ay ogtahay todobadaas meesha ku aadan satada ku aadan ayaa markasta isku dayaan inay mataqaana wax ka sameystaan. waxay ka sameysanayaan aad dareemi doontaa in hadda Djibouti ay ka qaataan wax allaala wixii sahay oo u yimaado shidaalaha wax allaala wixii u yimaado Somaliland waa ka qaataan. waxay danaynayaan marka meeshan ku aadan inay dekad ka helaan oo ciidan badda ay meesha dhigtaan. meeshaasina markii ay degaan waxay noqonaysaa in ayaga laga gurto. waxaa jira hadda waxaan arkaynaa boqolkiiba 10 in laga siiyay mataqaana dhul Soomaali laga siiyay sabab loo siiyay ma naqaan anaga. waxaa marka fahmaysaa taliskan ciidanka badda ay sameysteen iyo difaac heebay ay sameysteen qoladan la dhahayo Itoobiya barnaamijkooda waa barnaamij mug weyn oo Soomaaliya hadayna fahmin ay arki doonaan qayb kamid ah dhulkoodii oo lala tago. marka hore waxay leeyihiin hobby naga siiya mataqaana dekad waxay leeyihiin garacad naga siiya marba meel ay dhahayaan naga siiya
marka dambe waxay noqonaysaa meesha ku aadan oo ugu dhow dhul ahaan inay mataqaanaa ay soo galaan marka dambe waxaa arki doontaa ay kugula xisaabtamaan inay mataqaanaa barnaamijkaas dhulkaas laftigiisa lagula xisaabtamo barnaamijka hadda ay rabaan hadda ma aha laakiin waa mustaqbal dambe waxay hadda khubarada dhinaca badda ah ee Soomaaliya ayaa dhammaantood isku raacay in arrintan Itoobiya ay sameysay ay khatar ku tahay Soomaaliya soo yeeraya oo Itoobiya ciidan badan yeelanaysa runtii waa mid khatarteeda weyn leh gaar ahaan maxay khatar u tahay ma jirto dawlad yeelaysa ciidan badeed oo wadan oo daris la ah isla markaasna hore ugu soo dhaxaysay dagaalo hore u soo dhacay 2 goor 3 goor hore u soo dhaceen in ciidankeeda badda ay keensato xeebteeda waxa la ciidankii badda oo in la dagaalo la rabay hadiiba dekadaada oo imaanaya marka waa adigoo dab soo gashanaya gurigaaga oo kale marka khatar weyn ayay ugu tahay Soomaaliya gaar ahaan xaaladda hadda Soomaaliya ay ku jirto oo la fiiriyo United Arab Emirates oo aan ognahay in heshiis oo dekada Berbera ay saami ka siisay Itoobiya oo sida la sheegay muddo dheer ku taamaysay inay mar un wax ku yeelato badaha Soomaaliya ayaa dhawaan saami laga siiyay dekada Berbera kadib markii ay heshiis kala saxiixdeen Imaaraadka Carabta Itoobiya iyo Somaliland kal horena waxaa socday muran u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Kenya kaas oo la xiriiray muran dhinaca badda ah oo Kenya ay sheegtay in qayb kamid ah biyaha Soomaaliya iyadoo ay leedahay dhammaan arrimahaasi ayaana u muuqda dhibaato dhinaca badaha kaga soo wajahan Soomaaliya una baahan in wax laga qabto Faadmo Sheekh Cabdullaahi Goobjoog Muqdisho